ودليل la yaab la saaxiib iyo wareerkeeda ku soo dhawaada warbixinaynu ku aadayno isla mar ahaantaasina aynu ku eegayno madaxweyne 45 sano ka hor la dilay isla mar ahaantaasina la khaarajiyay oo aas qaran dib loogu sameeyay madaxweynihii hore wadanka Liberia William Tarbert ayaa loo sameeyay aas qaran kadib 45 sano ka soo wareegtay markii lagu dilay Afgambi iyadoo la rumaysan yahay in meedadkiisa ay ku jireen dad loo aasay xabaal waradeedyo 10 maalmood kadib markii madaxweynaha la dilay ayaa maxkamad ku taala halkaas 13 ka mid ah golihiisa wasiirada lagaga xayuubiyay xilalkii hayeen intaas kadibna waxa la xiray koorinta aan dil toogasho lagu fulin toogashadaasina waxay ka dhacday xeebta xeero ciidan oo ku taala caasimadda dalkaasi midadka 14 nin ayaana midadkooda la helin balse nin waliba waxa loo sameeyay aas qaran oo ay ka qayb galeen madaxweyne Jaboza iyo waliba marti sharaf kale munaasabadan ayaana loo arkay mid dib heshiisiina oo ka qayb ah hanaanka wadalkaasi kaga soo kabanayo rabshadihii dhaawaan dhacay